وفيه النور وفيه اللؤلؤ والمرجان. ولد يا شبل الإيمان واصدح بالقرآن. أتل السطر وراء السطر فالقرآن ربيع العمر والقرآن شفاء الصدر فيه الرحمة والغفران. أتل السطر وراء السطر فالقرآن ربيع العمر والقرآن شفاء الصدر فيه الرحمة والغفران. فيه الرحمة والغفران. ولد يا شبل الإيمان واصدح بالقرآن. غرد يا شبل الإيمان واصدح بالقرآن. أبدا لا يعلوه كتاب أبدا لا يجفوه صواب أنزله رب وهاب رب تواب رحمن. أبدا لا يعلوه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إخوتي في العقيدة، ورمضان waxaan filayaa waa waqti malaa dadku daalay, laakiin waxaan isku dayayaa inaan kalimaad kooban insha allahu tacaala dariskan ku soo koobo. dariskan waxaynu kaga hadlaynaa ataaqaat almuhadara, awoodaha allayna siiyey subxaanahu wa tacaala ee aynu dayacnay ama se aynan adeegsanin. ilaahi subxaanahu wa tacaala qur-aanka wuxuu ku tilmaamay wain tacuduu nicmat allahi laa tuxsuuha. ilaahay wuxuu nimco idinku galladaystay, wuxuu badhaadhiya sareediya barwaaqo idin siiyey. haddaad tirisaan baa alla leeyahy subxaanahu wa tacaala ma koobi karaysaan. nimcooyinka alle subxaanahu wa tacaala ma aha wax tiro lagu koobi karayo. laakiin waxa isweydiinta leh waxa weeyaan intaynu nimcooyinkaasi ka faa'iidaysanaa ama se adeegsanaa. dhan kastoo laga eegaba nolosha waxaad moodaa inaynan halkii loo baahnaa gaadhin ama se aynan ku qanacsanayn. maalan waa ramadaan, dadku inta badan qur-aan akhris iyo cibaado iyo salaad iyo tasbiixaad iyo duca ayuu ku jiraa. markaynu milicsanno in yar taariikhdii dadkii muslimiinta ee hore, waxaad moodaysaa inaynu akhriyayno dad kowkab kale ku noolaa, dhul kale dad ku noolaayo kanaynu inagu deganay aan deganayn. markaad aragta awooddooda, juhdiga, tamartay bixinayeen, waxay yaqaaneen, waxay qaybsanaayeen, marka lagu yidhaahdo waa caalim muslim oo fulaana. maanta waxaan ku dhuftay kutub الrijaal ama taraajumka ayaan xafid alqur'aan ku qoray, dabeetana waan gala waxaan eegay bal culammadii muslimiinta ee hore ee la yaqaanay ama la garanayo uun waxay qur'aan hayeen. maan arag nin caalimo iga soo horbaxa ilaa iyo qur'aan iyo intaasoo kitaaboo kalu qaybsayay qur'aan qura. innagu keenna qur'aanka qayba ayaa maa shaa allahu taagantay. kaasaynu ma jiirannaa farta ku tilmaamna waxaa la yidhaahdaa intaasoo xaafid baynu leenahay, ma hebel waa xaafid. laakiin markaynu salafkeenni akhrino taariikhdooda iyo taraajimtooda, waxaad moodaa dad kowkab kale ama dhul kale deganaa inaynu arkayno. oo kaannamaa marka lagu yidhahdo waa bukhaari intaasoo 100,000 oo xadiid buu qaybsanaa, waa imaamu axmed oo 1 milyan oo xadiid buu hayay, waa awsaaciyo intaasoo 100,000 oo xadiid. nin walba marka lagu yidhahdo 100,000 oo xadiid oo maca sanadkiisa wata iyo wuxuu dhan baan kitaabba ku qorrayna uu korka ka watay. bal ay subac u fadhiisan jireen sidaynu qur-aanka subaca ugu fadhiisanaabay xadiidka subaca ugu fadhiisan jireen. dabeetana inta nin caalimi nin kale u yimaada buu ku dol akhriyi jiray, wuxuu maxfuudaadkiisoo dhan intuu ku dol akhriyo ayaa laysla sixi jiray oo la kala eegi jiray. innaga maxaa taaqadan iyo awooddeenni xaggay ka baxda? dariskan markaa maanta aan isku dayaya inaan akhriyaa waxa weeyaan, waxaan rabaa mindaarka ama
maxaa la yidhahaa mikriska waxaan nolosha waxaynu ku eegayno inaynu change garayno muraayadaynu xidhannay aad u qallafsan muraayadaha qallafsani waxay suurto gelin kari waayeen inaynu noloshii xaqiiqada ahayd aragno taasaa waxay keentay markaasi in taaqaadkeen iyo awooddeen iyo dhamma ay cadilanto oo waxba aynu garan kari weyno taasaa waxay keentay in maalinniba maalin inoo dhiibto shaqo walo aynu qaban karnaba aynu israahno berri sanadka dambe markaad soo firaaqowdo bal hadhow baad wakhti u daydayi doontaa noloshana mar la firaaqoobaaba ma jiro waxaan rabaa markaasi maanta cilmi idinku kordhin maayo laakiin silsiladaan idinka jebinaya yacni waxaan rumaysnay in silsilada inagu xidhan yihiin awooddii iyo taaqadii alla ina siiyey subxaana wa tacaala in silsilada inagu xidhan yihiin waayo shayga nolosha ay u baahan tahay maalmaha ka mid ah waxaan galay netka dabeetana waxaan galay labadan website ee xufaadul waxyeynka laba website oo qur-aanka iyo axaadiista lagu qaybo kadib baa waxaan arkuun iclaan yaroo meel ka laalaada oo sheegaya ma rabtaa qur-aanka inaad 30 maalmood ku qaybto markaasaan sidhi waa qariib war mala 30 maalmood qur-aankii aad taqaanay 30 malaa laguma qaybo 30kii maalmood meesha ku qorayd baan galay waa risaale ama kitaab nin qoray oo 63 page 63 page runtii haddaad akhrido noloshaada wax badan baa iska beddelaya waxa uu xisaabiyaa uu tilmaamaya uu leeyahay wax kasta oo nolosha hadaf kasta aynu u baahanay inaynu xaqiijinaa laba shay oo qudhu u baahan yahay buu leeyahay midi waa alhimma walcaziima walmusaabara midi waa han sare oo go'aan adag wata hanku waa qofku inuu han weynaado haddaad han yar tahay waxa weeyaan waa cigaal shidaadkii lalahaa maxay col hortii jabayay col hortii baad jabaysaa haddaad han yar tahay macnaheedu waxa weeyaan adaan waxbaba isku dayin ayaad jabaysaa laakiin qofku markuu han weyn yahay oo uu casiimana leeyahay go'aan adagna uu leeyahay kaasi waa qodobka koowaad ee nolosha wax ka bedeli kara qodobka labaad ee nolosha wax ka bedeli kara waa almaqdira awood iyo istitaaca inay jirto awood inay jirto awoodina way kaa buuxdaayo waa lagu tusi waayey Soomaalidu waxay yidhaahdaan geela baa aakhira xooggiisa la tusaabay yidhaahdeen adduunka ilmo yar baa dee neefka geela weyn hogaamiya marka aakhirunbu xooggiisa arkaabay yidhaahdaan waxaan ka baqayaa inteenna badani inaynu ku dhacno aakhira un inaynu aragno awooddii iyo nimcadii iyo xooggii allayna siiyey subxaana wa tacaala in adduunka arkari weyni ka saddexaadna wuxuu ku tilmaamayaa inay tahay in la helo الصحبة الصالحة المشجعة إن له الضد في عن وقرقار ستور راعديد وأن مثبتين هين أن ضد بلك كوكونا بيا هين ضد كركو قاضي يو كركو سي وضيا وحلقة يا با ولينا وهي ستان إعلان كيا تلمامي ها إن قرآن كصدن مالموت صادقو قيبة سائنة مسألة الرياض هاي waxa uu sameeyay amaliye xisaaba xisaabtu waa waxyaabo ugu concrete ee bini'aadamka lagu qanciyo amaliye xisaaba buu sameeyay wuxuu ku tilmaamay page-ka quraana imsaad ku qaybi kartaa page quraana aan xisaabta xaga kale ka soo maro jiska quraana imsaad ku akhridaa ninka gaabiya nus saac ku akhriya raga carabka fududina rubuc saac meelaha si gaarsiin kara mutawassidkuna 20 ilaa 25 ay ku akhriya haddaan idhaahdo jiska nus saacaad ku akhrida jiska quraani way mise page markaanu qaadano tabcadatan Uthman Taha uu qoray yani mushaf kan inuu akhrina ninba gacantiisa ku qoray madbacadii waxa maaha ninba gacantiisa ku qoray عثمان طه كتاب كان قري وحو سميسي قاب شنية طبعا صدر بيج كستابين وككوبين يهي آيات نكبل ما آياتنا وكل ماضو جسوة لبلا باتم بيجينو يهي مركا لغا ريبو جسكا كوادة فاتحة دي انتان لقرحيي كاسوا كوبيا لباتم بيج مركا لغا تغيسنا جسكا وقودن بيا
jis caam ah oo isagana suuradaha calaamadahan u dhaxeeya lagu tiro badiyay isna 23 page ama quraanka caadiga wuxuu ku qoray maxay 20 page jis kastaaba sadaradeed musxafkaasi wuxuu ka kooban yahay 604 page haddaynu idhaahno 20 page ayaad gaabisaayo nus saac ku akhridaa nus saac page-kii misaad ku akhriday marka 20 daqiiqadood u qaybi waa daqiiqad iyo badh socanka maaha page-ka waxaad akhriyi kartaa daqiiqad iyo badh qofka gaabiye 30 daqiiqadood jiska ku akhriya page-kii wuxuu akhriyi karaa maxay daqiiqad iyo badh buu ku akhriyi karaa sadar imisaad ku xifdii kartaa markaad imise jeer ku celiso hal sadar مثلا قل هو الله مصحف كاسي والله بس صدر قل هو الله النسكي إمي سجور مركز خدمات غيبيس يعني مصحف كامر كانوا يقولون قل هو الله النسكي وقل هو الله أحد الله الصمد لم يلد أنت صدر إلا لم يلد إمي ساتكو غيبيس مركز إمي سجور أخرده مر لبا صدح أفر شن لح تضوا سيدة إمي ساتكو غيب كريس haddii aan idhaahdo maalan 5 jeer baad ku qaybi kartaa haddaan idhaahdo sadarka markaad akhrido 15 sadar misaad ku akhriyaysaa marka yani sadarkiiba waxaad ku akhriyaysaa minute iyo badh soomaha page-kii minute iyo badh baad ku akhriyaysaa minute iyo badh haddaad ku akhriyaysay page-ka 20 jeer inaad akhridaa maxay keensanaysaa waa nus saaci بيجك الله باتن شيرين هذا خريدا وامحي ونص ساعي وحلي عملية حسابي إن كان الصدر كهدام كويدا هذا بودي شن شير آخري أو صفي عن آخري صدح شيرنا محاولة سديت شير بتكون غيبة كرتا هدان إذا هذا بولي هاي معنى هذي وحوي عن لبية 8 دقيقة دوت ببيجك لوجو غيبة لكن والله بية 8 دقيقة دوت التركيز اللي هذا يبيد هذا والله بية 8 دقيقة دوت وأنا دميل لو شيء سنين إذا هداد بيجكي إلا 110 دقيقة ku qaybi karto waa ninkii gaabinayaan wali la socdaa inamada dheeraynaya lama socdo بيجك هداد 12 دقيقة ku qaybi karto haddii maalintii aan ku idhaahdo 5 nus saac akhri quraanka 5 salaadood salaad walba nus saac akhri waa imisa 4 saacadood iyo badh 4 saacadood iyo badh 12 daqiiqo haddii lagu dhufto لحدا لو قيبيه واي بيسوي وشن بيج تدمين ساعات كستا شن بيج باد قيبي كرتا هدات شن انت كو دفتو والله بيا 20 بيج يا بد معناه waxa weeyaan 4 saac iyo badh waxaad ku qaybi kartaa markaad nidaamka 12 daqiiqo raacayso 22 beyj labada beyj iyo badhka tuur 20 beyj waa hal juz nidaamkiisa uu xisaabiyay hadaad sidan ku socoto waxaad ku qaybisaa waxa weeyaan 7 maalmood taa macnaheedu waxa weeyaan taqriiban 30 maalmood uu sheegay uu ku qaybi karaa waxa laga yaabaa inaad tiraahdo mustaxiil waxaan iska xisaabaad sheegtay sheekhay practicalka laguma hayo practicalka haddii asbaab la helo waa wax suurtagal ah waxa laga yaabaa markaan inta badan tajaaribta akhridaan in kuwii salafka aragtaan oo dabeetana la yaabtaan imaam zuhri quraanka markuu baranayay 8 casho ku qaybay yani sida bale hisham al-kalbi waxa la yiraahdaa 3 casho ku soo qaybay waxay ku sheegaan rag badan marka taraajumtooda akhrido intan bay ku qaybeen intan laakiin raggaas waa raggii hore waxa odhanaysan iyagu khaariq ay ahaayeen dadaan khaariq ah inaan hadda jooga hadaba tilmaamo ilaahay horta wuxuu ina leeyahay wa fi anfusikum afala tubsiruun وعلم آدم الأسماء كلها آدم مقع عردن با إلهي بري سبحانه وتعالى آدم عقل جيسو وحو قاضي وح عجز قليي ملائكته آدم عقل جيسو وحو قاضي محي سقران كنت الماميو وح عجز قليي ملائكته با آدم عقل جيسو قاضي سيكا لهدانو تلمامو وحنا ذي اللي هدي أينو يسكر ابنه أفكارتن لينقو أخريا وحبل لما قيبي كرو وحبل لما أخري كرو وحبل لما برن كرو وحوا صعب وعلى ارتجابي يتاسي هدي تال الريبو وحلنا وح بدن وفضودان يباشره بل أن بعد التجارب يسون نقليان تلمامو قبل هوانا
ayaa waxay tiri waxay igu qaadatay ali cimraan iyo albaqra inaan qaybaa 7 sannadood kadib ayaa bil ramadaan 15keedii baa ninkaygii wuxuu yidhi bay tiri waan ictikaaf tegayaa waxaan qabanayaa baytullaahi alxaraamka 4 carruurana waan haystaa bay tiri waan warwaray marka meel aan reerkaygu deganayna waan deganay dabeetana maxaad qaban doontaa 15 cashe ramadaanka ee odaygii maqan yahay ayaan isweydiiyey bay leedahay anigoo aad u mahmuuma bay tiri aad u wareersan baan internetka galay waxaan helay bay tiri website-kan akademiya xufaad alwaxyayn waa sheekh cali rabiic sheekh cali ibn saciid alrabiici website-kiisa waa website dadka qur-aanka qayba ay galaan ayaan galay bay tiri dabeetana sheekha website-kiisii markaan eegeegay ayaan waxaan arkay bay leedahay qola meesha ku qoratay 3 casho ayaan baqariya al cimraan ku qaybna أنا 7 sannadood bay igu soo qaadatay bay tiri albaqra iyo al cimraan inaan qaybo waxaan arkay bay tiri dumar le 3 maalmood baan ku qaybnay albaqra iyo al cimraan dabeetana waxaan sidii buu yiri maad bal qoladan wax ka bedelay maadna gashi website-kan register gareeyay bay tiri waxaan rabaa inaan member ka noqdo dabeetana waxay gashay dowraad uu bixiyo sheekhu oo la yiraahdo dowraad tagyiir al-aqli buu bixiyay dowraadkiis dowraadka maan bedelka ayay gashay kadib ayaan bilaabay bay tiri munabbah baan saacad yar baan halkan dhigtay bal inaan page-ka 10 daqiiqo 12 iyo waxaan la sheegay inaan ku qaybi karo waan tijaabiyay bay tiri 10 daqiiqadood baan page-kii koowaad ku qaybay dabeetana maalintii koowaad baan fadhiistay bay tiri subaxii ayaan fadhiistay goor barqa ah ilaa iyo 2:00 duhurnimo in yar baan jiifsay kadib aan casar fadhiistay ilaa cishihii maalintii koowaad baan istijaabiyo 3 jis baan qaybay bay leedahay waa hal maalina ayaan istijaabiyay bay tiri 3 jis baan qaybay 6 maalmood markaan marayay bay tiri 6 iyo 10 jis baan qaybsanaa 6 maalmood markaan marayay 6 iyo 10 jis baan qaybsanaa waxaan gaadhsiiyay bay tiri inaan 8 daqiiqadood page-ka ku qaybo waan ka badiyo markii dambe 5 daqiiqadood uma page kasta ku qaybi jiray gabadha tan mala caqligeena ka weynaa aan hore isaga dhaaf ومعاصم هويني كلا الله يدعى يد واحد لدي أنا وحن سمي مسألة الله يدعى الاعتكاف بالقرآن بين سمي بيتنا لبعتن مع الموت ما القرآن كقيبة غريبة لبعتن مع الموت ما القرآن كقيبة بيلاد ولي بيلاد ما نهين قف دمراعد لتشوكتي أفر عرهورة يا بهود يا جوري جاي الرير كان وين مامول يوم ودي بيلاد هبن كم مغرين ساسي درادد بوحي شيء سائل هذي دورات كشيخ سبحية بيتري علي الربيع علي بن سعيد دورات كيسا تغيير العقل كان دقيستي كدي مركان دقيستي ايام بلا بيت رمسه مالنتي هورتا 6 صفحات بان قيبي بيت وان ودايو markii dambe waxaan gaaray bay tiraan 12 صفحات qaybi karo maalmihii ugu dambeeyay waxaan gaaray bay tiraan 50 صفحات qaybo maalintan khatimayna 27 صفحات baan qayba 27 صفحات oo imis صفحتي هدين نيجيسكو ولا 20 صفحة ضادي مسون غنيا 3 جيس يا باد يا ديراد وليبا لبا iyo 7 صفحadood baan maalintii u dambeysay qayba bay leedahay laakiin imise ku fadhiday waxa leedahay 24 saacadood 8 ilaa 10 saacadood baan xifdi u fadhiyay 8 ilaa 10 saacadood ayaan xifdi u fadhiyay waxay ku tilmaamaysaa habeenkiina 2 saacadood baan seexan jiray maalintiina 2 saacadood iyo badh baan habeenkiina seexan jiray maalintiina snaab yarun baan qaadan jiray in yarun baan indhaa guduudsan jiray kadibna waan ka kici jiray waayo project bay sugaya bay leedahay inaan dhameeyo waxa laga yaabaa ina masaa'ilka kan ka yaaban tihiin laakiin waxay yidhaahdaan haddii sababta la garto bay yidhaahdaan batal alcajab wax waliba markaad sababta garanay wax weyn buu kula yoodka yaabaa dayrad cirka maraysa markaad aragto warbalada tan maxaa hayabaad isweydiin laakiin haddii lagu dhigdhigo say wax u doolaan iyo saad waxa warila waxan baa la isu geegeeyaa dad iska kacaan waa kula fududaanaysa yani qofka bini aadamkii marka uu sababta aqoonin wax waliba qariib bay leeyihiin wax adaga weyn bay leeyihiin laakiin haddii lagu sababeeyo lagu riisan gareeyo wax lagu sheego wax way fududaadaan ilaahay wuxuu ina siiyay subxaanahu wa tacaala maskaxdani aad bay u yartay jidhkeenna marka lagu miisaamo bay yidhaahdaan waa 2.5% wasniga jidhka waxay yidhaahdaan waa 1330 garaam meelahaas bay ku tilmaamaan isku celcelintu
kiilo iyo waxoogaa yar weeyaan maskaxda kugu jirta haweenkana bay yidhaahdaan raggu 40 garaam buu ka weeyay yani isku celcelinayana 40 garaam bay ka miisaan yaryihiin maskaxdaasi waxay isticmaashaa baa la yidhaahdaa jidhku waxaad oxygen neefsato oo dhan dib u jiido rubuc ka mida keligeed baa cunta halaaliya waxaad oxygen cabto rubuc ka mida maskaxdaasaa cabta maskaxdaa waxaa ku jira balaayiin unugyo ah maskaxda inugu jirta waxay yidhaahdaan 22 decimeter decimeterka ma taqaaneen centimeter maaha hoos uga sii kac decimeter 22 decimeter oo murabbac ah yani square ah 22 decimeter intuu leegiin somewhat meelahan buu leekaanaya waa wax aad u yar centimeter waa decimeter 22 decimeter oo square oo maskaxda bini aadamka ka mid bay yidhaahdaan waxa ay qaadi kartaa 20 milyan oo volume ama book inta ku qoran bay qaadi kartaa ma u malaynaysaa in awood intaa legaad wadato waa 22 decimeter in ka mid oo maskaxda sidata ka midi waxa ay qaadi kartaa bay leeyihiin 20 milyan oo mujallad oo mutawasit alxajmiya waxay ku tilmaamaan maalan أحد العلماء وبروفيسور كلا ماك روزيزن وكم من علماء مسكحة دراسيسة جامعة كاليفورنيا سنوات بدن بو دراسيني كذبوا حليه هي هديبوا يري مسكحة بني آدمك مالين كسته 10 معلومات في الثانية الله شيء قبوا لي سكند كسته طبعا شيء هدي الله شيء قبوا لي سكت كوال برقصي هل كان من يتبع لحدا سكنه second kasta ama thaniye kasta oo ka mida nolosha qofka hadii loo sheego buu leeyahay 10 macluumo loo sheego muddo 60 sanadood lagu wado habeen iyo maalintoona aan la kala joojin waxaad qiyaastaa second kasta 10 baa lagu sheegayaa shay 60 sanadood baana lagu wadaya habeen iyo maalinbana waa lagu akhrinayaa wuxuu leeyahay macluumaadkaasi maskaxda bini aadamka ma buuxinayaan 1 على مليون من حجم العقل بوليه 1 على مليون من حجم العقل سيدا درادت باي waxay ku tilmaamaan insaanku maskaxda ku jirta awoodda alla siiyay ma ba isticmaalo bay leeyihiin 10% mooyaane boqolkiiba 10 ayuu ka isticmaalaa bay leeyihiin waxa lagu tilmaamaa qoladan computersku waxay ku xisaabtamaan gigahertz inuu processorku inta uu gigahertz uu per second jari karo waxay yidhaahdaan maskaxda bini aadamku 400 milyan camaliye xisaab bay fi daqiiqa samayn kartaa waxay ku tilmaamaan maskaxda bini aadamku 30 bilyan macluuma ay fi thaniya mucaalaja ku samayn kartaa yani computer dunida yaalla saamu ma qabto waxa lagu tilmaamaa maskaxda bini aadamka iyo xidhiidhada unugyadaadu leeyihiin 600 mayl cable-ka iyo wire-ka la dhigi karo ayaa u dhaxeeya bay leeyihiin iyada xidhiidhadeeda daakiraduna waxay ku xidhantahay bay leeyihiin inta xidhiidh ay samayso waxay ku tilmaamaan axad ulculamaa baa wuxuu leeyahay haddii buu yidhi dunida waxa TV iyo telefisyon iyo raadaar iyo telegraph iyo telecommunication waxa wax lagu xidhiidhiyo dunida yaalla haddii inta la yareeyo buu yidhi caqliga bini aadamka oo kale loo ekaysiiyo waxaasoo dhan waxa iskaga badan buu leeyahay bini aadamka maskaxdiisa yacni all telephone dunida yaalla wax allaaliya waxay switch dunida yaallo la isku daro maskaxda adiga ku saaran intay process gareyn kartaa ka badan sida daraaddeed ayuu axad ulculamaa waxa uu ku tilmaamayaa haddaynu isticmaali lahayn buu yidhi xaasuub ama computer maskaxda uun bal ku dhodhow haddaynu isnaana sameeya waxaa dhici lahayd buu yidhi inaynu samayno guri 10 dabaq ka kooban oo 770 mitir square ku yaalla buu leeyahay يعني بني آدم كيبلدي سوي حسابه سكو حد كمبيوتر أستراتو بس كحدا يرى أديك إلهي كوجر ركبي شقة يقبضه وحو وح قابن كرائن للسماية وح قادن الله يدبولي حجم جاه تضواب بقول إيه تضوابات متر سكوير أو طبعا طبق كور لورد سي حجم حاسوب لك بولي برمجدي سي مثال السماين كرابو ملي تايد الربا
yani programska ku shaqayn lahaa inta lagu samayn karayo iyada reeba waxa meesha yaalla wuxuu yahay daaqada inugu jirtaa inta ay leeg tahay iyo waxaynu ku isticmaalnaa ayaa aad u kala yar idan inagu waxaynu shaqo ka dhiganay daaqada inta leeg ama awoodda inta leeg inaynu cadilo oo aanay waxba qabanin wax qabasho la'aantu waa maxay qofka bini aadamka gacantaada maalan haddaad halkaa dhigto gacantaadu dhaqdhaqaaq bay ku shaqaysaa haddaad halkaa dhigto 10 daqiiqo haddaad ku hayso marka dambe way ku daalaysaa baad leeyahay gacantiba way kabuubiyootay haddii lagu yidhaahdo saacad ku hay inaad qaadiba kari weydaaba laga yaabaayo hadhow ku damqato waayo shaqadaad tirtay cudwi kastoo bini aadam ka mid oo la shaqo tira waa nooca kan cudwiga haddii la shaqo tiro howlgab baa ku dhaca howlgabku suu ugu dhacaya maalan miaal basiit aan idinsiiyo aniga igu dhacay barbaraanigoo ka soconaya gaadhi fuushan buu nala qallimay gacan baan ka jabay dabeetana bahalladan yaryar ee lafaha gacanta ku jira ayay buray mid ka mid ah jabtay waa lay rakibay ilaa halkaa lay xidhay 45 casho markay ku xidhnayd baa layga furay jabuuta laygaga furay dabeetana waxaa la yidhi wale waa ku jabantay dib baa haddana lay rakiba yurub baan la tegay 7 maalmood markay igu rakibnayd baa la furay dabeetana waxay dhaheen weli way ku jabantay ma laftii yarayd weli may rakibmin laakiin gacantaydii baa halkaa dhaafi weyday waa 90 degrees waa sidii loo xidhay ee bahashan cad loo igu xidhay ayay gacantiina joogtaa gacantiina halkaas ay joogtaa dabeetana waxay igu yidhaahdeen laftan yara jabtay iska illow imka khatar kale ku haysatee gacantan sidaynu kala bixin lahayn baynu tijaabinayna laftan iska jabnaato waxba layma qabtee physiotherapy baa lay diray halkaa dhudhunka iyo muruqa sare cududa laygu dhagaa waa layga cabaadiyaa 3 cashaan imaada xoog baa lay qabtaa waa layga cabaadiyaa marka qayliya cabaar baa lay sii daaya waskaga tagaa sidii ay maalinba in yar u kala baxaysay maalinta bay gacmaha isku dheerari labadeedii gacmood way isleegeen ma kala gaabna tii lafti kalena waaba iska bogsatay intii tan laga cabaadinayay maxaan u jeedaa يعني waxaan uga jeedaa gacantii bini aadamkee shaqada taqaanay sida tan ahayd aan waxba qabin hadii la xidho way hawl gabtaa hadii la xidho sida laga dhigo way hawl gabtaa mushkiladda ina haysataa waxay tahay taaqadii allayna siiyay awoodeeni ayaynu xidhnaa markaasa waxa laynaga dhaadhiciyo laynoo sheegay inaan waxba la qaybi karin wax qaybku inuu adag yahay in buugga wax lagu qortaa inay fiican tahay computerka iyo waxaan la isticmaalay inay fiican tahay maskaxdu waa ku damqanaysaa dabeetana xad baynu gaadhnay safxadii aan idin lahaa aan qaybno haddaad akhridabada madaxu ku xanuuno ood wareerto qaadiba kari weydo laakiin waxaad u baahan tahay in yar in lagu tadriibiyo in yar gacantayda inta la kala furo kale inuu kala furaabad u baahantay jirka bini aadamka ahi waa sida loo train gareeyo waa sida loo tababaro in badan baynu tusaalayaal waxaynu ku bixinay kuwan wax cayaara waxaad aragteen kuwan wax cayaara nin waliba halku cayaara buu weeye waayo uu train gareeyay kuwa feerka cayaara qaarkan sare waa weyn mijuhu waa wax dhuudhuuban sababtoo waxa weeyaan qaarkan sare loo train gareeyaa kuwa kubadda cayaara mijaha waa weynaada qaarka sare waa wax dhuudhuuban shaarka marka iska bixiyaan waa feedha yar yar laakiin cagu waa weyn waa loo train gareeyay yani qofka bini aadamka meesha la kobciyaa kobocda haddaad maskaxdaada tijaabiso inaad wax qaybi karto wax xifdii karto wax baran karto waa wax aad u fudud bukhaari haddii la qali lahaa maskax inteeda leeguma ku jirta kama badnayn kuwa kale casrigiina dhaafay qarnigiina dhaafay saynisyahankii dunida ugu weynaaye ay yidhaahdaan waa saynisyahankii soo mara qarnigii 20aad waa albert einstein einstein waa oday yahuudi jarmal asalkiisu ahaa yahuudina ah yahuudi jarmala markii dambena maraykan noqday waa cilmiga physics-ka nimankii ku takhasusay waa ninkii aragtidiisa ay ka soo burqatay nuclear weaponkan la sheegaya iyo fikradahan TV-yadan iyo waxan iyo waxaasoo dhamay nadariyaad physics uu leeyahay bay ka soo burqadeen waxa ay yiraahdaan waa aqligii ugu weynaaba iyagu markay wax qiimaysanayaan aqliga deentoodu bay yaqaaniin waxay yiraahdaan markay intoodii isku dardareen waa aqligii ugu weynaa ee qarnigii 20aad dunida soo mara bay yiraahdeen sadaradeed bay waxay yiraahdeen ninkan yeeynana aasine balaaneegna maskaxdiisa waxa ku jira Einstein markuu dhintay baa la qala iyadoo la rabo bal in la ogaado meesha tan waxan ninkan ku jiray غير caadiga ah
waxay yidhaahdeen einstein maxaa loogu tagaad u malaynaysa qof bini aadama caqligii baa loogu tegay bay yidhaahdeen wax ka badanoo ku jiray maskaxdii einstein lagama soo helin laakiin muxuu ku gadisnaa waxay yidhahdeen wuxuu rumaysnaa inuu ka shaqaysiiyo u adeegsado idan bukhaari wuxuu rumaysnaa inuu maskaxdiisu ay u tahay maktabad imaam axmed wuxuu rumaysnaa wuxuu xifdiyay inay maktabadiisa yihiin abu zarca wuxuu rumaysnaa maktabadiisu wuxuu qaybay inay tahay shaafici saasuu rumaysnaa a'immadii hore saasuu ninkuu cilmigiisa laabtiisu ku sitay kumaankumka kitaabaynu sheegayno imaamu tabari baa ardadiisa wuxuu leeyahay aan idiin yeedhiyo tafsiir ee qorta himmadaa yaraatay buu yidhi daymka waxba 30 majladood buu yeedhiyey tafsiir 30 majladood uu yeedhinaya waxaanu leeyahay himmadaa yaraatay ma yaraantun baa lagu bilaabaa maya bacd alculamaa baa waxay qoreen kitaab la yidhaahdo man xafida alqur'aana bacda al40 buu nin qoray 40 jir raggii dhaafaya qur-aanka qaybay oo maxaad qur-aan sheegaysaa azhar a'immadeedii nin ka mid ahaa 54 jir buu ku bilaabay wax qorista waa imaam alakbar lilazhar laakiin 54 suu magaalada isaga joogay markuu 54 jir marayay ayuu yidhi nimaad wax baratid horta waqti badan baaba kaa lumaya waa bilaaba azhar buu soo galay dabeetana waa soo waday waa soo takharujay imaamul azhar isagoo ah buu dhintay 90 jir daadiisuna marayso 94 sannadood meelahaasaan filaya inuu ku dhintay mise 90 meelaha laakiin wuxuu dhintay isagoo imaamu azhara yani wuxuu aaminsanaa awoodda iyo daaqada ku jirta inay wax kasta qaban karta ayuu aaminsanaa idan waxa mushkiladda meesha taallaa baynu leenahay ma aha waxa mushkiladda meesha taallaa waxay tahay kow inagoo jahli uu inagaga sugayay nafteenna إلهي إنه لي سبحانه وتعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي أنفسكم أفلا تبصرون إلهي سبحانه وتعالى إنه يقول وعلم آدم الأسماء كلها آدم وحم مقعد شروع أردن بالبراي وحال براي أقون ملائكة كعاجستي وسمين كرويدي هذا آدم إن كيسو ماذا نطي مالك لك مادما آدم كإلهي لي سبحانه وتعالى أسماء أردن بالبراي inankiisii baatay taa macnaheedu waxa weeyaan inaad wax kastaba samayn karto masalada markaa meesha taalla waxa weeyaan jahliga aynu nafteenna jaahil ka nahay ayaa waxay keentay inaad arki weydo xoogga alle ku siiyey subxaana wa tacaala iyo awoodda aad haysato sida daraaddeed ayaa waxa dhacday in aad waxba qaybi kari weydo ama inaad wax baran kari weydo ama inaad xaafid noqon kari weydo نبي محمد عليه الصلاة والسلام حين ليه المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان نبي عليه الصلاة والسلام وحط المام يا مؤمن كحوجا إمام النووي وحلي حوجا لشيء وقوة نفسية بولي مؤمن كحوجا باك خير بدن بو نبي يقول مؤمن كضعيف كا لا بد بنا خير باكو تشرو دي إيمان باكو تشره نبي حين لا يحرص على ما ينفعك احرص أو احرص لا بد ولا شيء كد دال بالليل وحكو أنفعيه نبي محمد عليه الصلاة والسلام عين كاسبين ليه وحاوين ليه نبي عليه الصلاة والسلام واستعن بالله ولا تعجز ولا تعجز ولا تعجز لا بد ولا شيء إلهي كالميس سبحانه وتعالى يمرنا بها عجسين عجسك وويني وأدقو أودا دا أركواية إن آدمكي ولالكي دليواكي أودي سيباركي وايي دابتنا ولالكي ونتورتسكي قسيتي إلهي سبحانه وتعالى وصدر محي غراب تكوح برة دبتنا وحدا عجزت أن أكون مثل هذا الغراب فواري سوى أخي ورما وحن كعاجسي ما وحن كهوس مري تكهكن حق وقبي جهل جاهي حق سي وقبي تكهن علمي ككرلي جهل جاهي تكهن السلسلة دي كحد نيد بكفرة والسلسلة عن ربينا إنه قلب تسكفر يعني قف
bini aadam oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu abuuray oon wax qaybi karini ma jiro bal waxaan tilmaamaynaa leenahay nebigu calayhi salaatu wasalaam ducooyinkiisa saxiixaynka ku yaalla bal ay abwaabta u samaysteen baabu tacawudi min aljubni baabu kada ay abwaabta u samaysteen waxaa ka mid ah saxiixaynka iyo kayrkiiba ku soo arooray ducada nebiga inay ka mid ahayd nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu ilaahay ka magan galo allahuma innii acuudu bika min alcajsi walkasal bale waxay ka mid tahay awraadda yowmiga laga rabo qof kastoo muslimi inuu akhriyo subax kasta markaad soo toosto waxaad tidhaahdaa baa lagu leeyahy ilaahu waxaan kaa magan galay cajsigu waa cadam alqudra iyo kasliguna waa wixii aad awooddo ka wahsato ilaahu awood darran kaa magan galay iyo wahsi iyo tamardarro waxaan tilmaamaynaa leenahay mushkiladdeenna waxay tahay hankeennaa yaraaday sida awgeed ay waxaynu ku qanacnay in hoose laba mid qaarkeen waxaabay ku qanceen qur-aankana inaan la qaybi karin koow qoladeenna qur-aanka qaybtayna waxaa laga yaabaa inay bes halkaa ku qanceen halkaa haddii la gaadhay halkii u sarraysay in la joogo laakiin waxaan leenahay muslimka maanta jooga iyo muslimkii hore waa isla bini aadam bal innaga ka fursad badan markay furaska tahay furaska bukhaari wuxuu lugaynayay intuu bukhaare ka soo lugeeyey ilaa masar ilaa ciraaq ilaa shaam ilaa iyo xijaas ayuu maalinba dhan u socday cimrigiisii lug buu ku dhammeeyey siduu u waday isagoo ururinayay laakiin adiga waxaa laga yaabaa kili kombiyuutarku aad taabataa inay kaa xigto ama kitaabaad maktabadda ka qaadataa inay kaa xigto wuxuu bukhaari intaa la lugaynayay furaskii adigaa haysta laakiin waxa yaallaa waxa weeyaan hankaagaa yar hankaynu niyaddaynu hayno iyo hanka aynu hayno iyo waxa aynu isleenahay xaqiiji baa yar marka horeba meel fog baanad kaba fakaraynin qofka bini aadamkana hadduu hankiisu yaryahay waxba maaha casriga kan musaabaqaad baa la qabtaa sunanka ka mid ah riyaad saalixiin baa musaabaqa loo qabtay inan muslimadoo masriyadii 2 maalmood bay ku qaybtay atacjabuun waa riyaad saalixiinka waa 2 kun oo xadiis maalinba kunun bay iska tuurtay 2 kun oo xadiis 2 maalmood bay ku qaybtay muna saciid gabadhan la yidhaahdee macruufka waa gabadh xifdiga ku macruufa buluuq ilmaraam 7 saacadood bay ku qaybtay buluuq ilmaraam ma soo ma taqaaniin kitaabka dhigataana buluuq ilmaraamka la yidhaahdo 7 saacadood bay ku qaybatay muna saciid waxay qaybsantay ilaahay kitaabkiisa saxiixaynka bale waxay qaybsantay al-ummahaat al-14 waa haweeney 14 kitaab ee sunanka ugu waaweyn bay korka ka haysaa dadka hadda nool الشيخ محمد حسن ولا دودو شنقيط الشيخ غنا وشيخ كنت تشرقاري مكو 40 كداف 40 فن بو حفظ سني waxa laga yaabaa maktabadaada inta kitaab taaliya inta qalbigiisa ku jira inuu kiisagu bato waana qof bini aadam aan 40 kaba gaadhay ama imka 40 ka talaabaya wahan waxa kane ulama shanaqita shanqit marka tagto qof aan wuxuu yaqaan qaybsanayniba ma joogo shanaqidadu ma bini aadam ka gaara bini aadamka kala maya waana man afrikaana oo inoo eeg oo reer miyiga oo geela haysta iyo inta aynu haysano oo nolosha intaynu kaga noolayn ka sii liidataba kaga nool laakiin waa wada xifdisan yihiin nin kastoo sheekh lagu sheegaa ninkuba maxamed xasan wala dudagaba wuxuu leeyahay 40 fanni ninkan wax ka aqoon de sheekh lama yiraahdo buu yiri 40 fanni ninkan wax ka aqoon qofku wuxuu yaqaan uu qaybsan yahay waa wax fudud wax weyn ma inaan Soomaaliyeed oo Ingiriiska jooga Ingiriisku ka yimi meelahan muslimiintu yimi subaxii buu yiri markaan salaad subax ka baxaan fadhiistaa ilaa 7 dhowr bilood buu ku qaybay quraanka dabeetana wuxuu ku xigsiiyay alfiyat ibn malik in yar buu ku qaybay wuxuu ku xigsiiyay alfiyat suyuti in yar buu ku qaybay wuxuu ku xigsiiyay shaatibiyada in yar buu wuxuu soo qaaday iska qaybay sheekh imka urduniya oo khaliijka culimada ka shaqaa kamid Ingiriisku ka yimi ragii rabshada badnaaya meelaha Ingiriiska joogay buu dabeetana waa iskaga yimi meelahan buu yimi Urdun 2 sano meelaha soo masaajid isku xidhay hatta waxaad aragtaba uu qaybsan kitaabka aad istiraado balkan sheeg isagu korku ka haya waad u bilaabaysaa kitaabku akhrinaya
ma aha bashar caadiya dadka kani yacni dadka ka gedisan maaha hawshaad haysaabuu hayaan shaqadaad qabataabay qabtaan saddex dumaray qabaan aabbay yihiin carruur bay u shaqeeyaan waxaad wadaabay qabtaan laakiin xaggee wax iska weydaarsan yihiin waxaan leenahay waxa wax iska weydaarsan yihiin labadan shay baa u baahan inaynu fahmno inaynu han yeelanno caaliyilhimma inaad noqoto qofka caaliyilhimma waxaa lagu yaqaanaa inuu casiimo leeyahay inaanu xamaas wixiisu ahayn laba cashiya maalintaad xamaasadooto inaad dabeetana laba cashina iswereeriso hadhownaad xagga dambe kitaab ka tuurta maya inuu noqdo qof casiimo leh faidaa cazamta fatawakal cala allahi buu ilaah yidhi markaad go'aansataan ilaahay subxaana wa tacaala tala saarta qofka caaliyulhimmiga waxaa lagu yaqaanaa waxa hoose kuma qanco waa ku imaam ibnuljawsi lahaa haddii buu yidhi nebinimada la odhan lahaa farsamaa lagu helayaa iyo barasho inaad wax nebinimo ka yar raadisaa waa kuu doqoniimo buu leeyahy yacni meel nin maray inaad adigu ka hoos martaa waa kuu doqoniimo waad mari kartaa weeyaan waxaynu u baahannahay caaliyulhimma waa qof raba shaqada u qabanaya inuu xoog ku qabto yaa yaxya khudi lkitaaba biquwa baa ilaah yidhi yaxyaw kitaabka xoog ku qaado awood isticmaal waxaa ilaahay subxaana wa tacaala inoo tilmaamayaa ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا نكدداله إذا أنت سو آخرتها هي إلهي سبحانه وتعالى وأوغا مهد عليا وحلا نقفك عالي الهمة قاهي وقف وقتك بخيل كواه ويا لبيه طبعا من إذا دي بيت قرآن لغو قيبة يمس ساعدات بكالوما محاد لبيه طبعا كان كاغا ديغي وحوين waxay yidhaahdaan culamaa'i nafs insaanku bay yidhaahdaan atacwiid waxa la yidhahdo isticmaalaha wixii loo baahnaa markuu qaban kari waayey bay yidhahdeen meel kaloo isku mashquuliyaa si uu meel kale uga muuqan karo sheekada iyo maxaa la yidhi daynu isku mashquulinay dabeetana xaggaasaynu ka wada muuqan masalada meesha taalla waxa weeye waxay yidhahdaan caqliga bini aadamku waa laba qaybood qayb waxaa la yidhaahdaa alcaqli alwaaci قيبنا waxay ku sheegaan al-aql al-batin aw al-shu'uri al-aql al-wa'i waxay ku tilmaamaan waa aqliga soo jeeda waa aqliga taxliiliya waxan xawaasto ay aragto isha iyo dhegta iyo maqalka iyo dareenka iyo waxa kan ka warama fakara wax sheega aqlina waxa la yiraahdaa waa aql al-batinka aql al-batinku waxay yiraahdaan waa xajmi aad u weyn isagu عقل الواعي قلنا وحير بيدهدان لكن وحير به قامية بيدهدان عقل الواعي قمرك وحود ما بيدهدان وناخذها دون توضا دون وين بوضا لكن يسقوا ناخذير عقل الباطن كه وحل قليا ملومان وحتسوي باهنت هنا تكدر دعسه شيء قمرك عقل الباطن عقل الواعي كسر وكم فكرة تالية ورمية ورك الشيعة لكن أنت تسوي جدنا وسوي جدا مركز هردنا يسنا وصحدا ومغني عقل الباطن هو يسقو مصحدا هبني مالي بو وسوي جدا وحيل لو دي مروا إلى عليا عقل الباطن كوحة وحلو ديبا كعل علن يكدادعن التصديق والتكرار باو بدن بين هذا إن لفهم سيو لقى دادعيه لقونا عليو isagu bay yiraahdeen wuxuu gacanta ku dhigo wuxuu ka dhigaa tabiica iyo sajiya iyo caada iyo suluk buu badala yani dhaqan buu badala mesela waxa lagu sheegay xadiis nabi kaleey salaatu wasalaam oo ah in midigta wax lagu cabo wax lagu cuno wax lagu qaato saxiixa ma xadiiskaas aynu haynaa maalinta koowaad xadiiska lagu sheegay sheekhu kitaabka dhigaya adag fadhiday waad fahamtay xadiiskii هذا مركز مقاهدة تكتار شاهد البطان ما بدي حسكير قدام كسو شيخ خوي كده بدك تقعد أتذكر دكتور بدك تقعد وين اللي أبي باتري شيخ بدك تسكعبت صادق حفر شنطة عشاء هره مرة بدي حد خوي رقم مرة بدك تو مركز أحد مرة نسوي ما تحصلني صادق يسوي نسوي صور شيء دام بنا لعبي بدك تاتكو قاعدانس لكن مركز مدود ضوء أوتوماتيك بيشو بدشه كوب الله صادق يا بدك تو ما تقعد ولا قبل حد قبل ماشي وتكبرت waayo waxay yiraahdaan aqal al-baatin kay degtay uma baahnid inaad fikirto tiraado ma bidixdan ku qaada ma midigtan ku fikrad laga ma rabo inaad tiraado bidixdiye midigta teeba go'aan ku qaadanayay waad iska fiiqaysaa
qoladan wax baadha waxay yidhahdeen maalan askarta askari haddaad doonaysa bay yidhahdaan inaad garato waa la joojiyaa dhaqaaqa dheh bidixdu ka dhaqaaqaya waayo iyadaa lagu tireengareeyey askarigu markuu istaago bidixdaabaa dee socodku ka bilaabmi jiray haddii aad askari taagto is idhaha socod bilow bidixduunbuu dhaqaajinaya halka qof kale laga yaaba mar inuu midigta qaado mar bidix kolba tii u fududaata inuu qaado idan caqli lbaatinku bay yidhahdeen waa waxa loo dhiibo waxa loo dhiibaana in lagu celceliyaa unbay ku xidhantay faatixada miyaa gaftaan faatixada goormaad akhridaa adigoo aan soo jeedin baad akhridaa salaadaad xidhataa allahu akbar sidaad u wadwaday unbaa maskaxdu iska tagtaa faatixada wala daalintumaad miirowdaa soo ma jirto yaa akhrinaya ilaa adigu waad maqnayde yacni caqli lwaaci baa maqnaa caqligii soo jeeday ayaa maqnaa laakiin caqli lbaatin baad u dhiibtay mar haddaad caqlulbaatinka u dhiibtay ma dayacanto waa iska wadaya isagu wala daali intaad ku miirowday uun markuu marinayay waxa la mida xifdigu markaa marna waa xifdi iska sariic oo intan yara saruun intaad dulka xaadisay caqli lwaacigaa haya oo safxadaad ka fakeraysaa oo aayaddii ku xigtaad baadi doonaysaa oo kelmadaad eegaysaa oo maskaxdu waxbay xisaabinaysaa intaa weli caqli lwaacigii baa xifdigaagu ku jira laakiin haddaad daafiso ka kale u dhiibto uma baahna inaad ka fakertee sidaa faatixada loo akhriyo ayaad u akhrinaysaa idan waxaan leenahay waxaynu u baahannahay inaan wakhtigeenna ka faa'iidayno oo isku dayno inaad wakhtiga ka faa'iidaysato aad noqoto qof wax qaban karaya waxaynu u baahannay inaynu ilaahay barino tala saarino gabadhaan ilaa 16 jis bay qaybtay waxay tidhi marka aan dareeriyaba maalin qaybaba waa sujuudaa una sujuudaan ilaahay ku baryaa ilaahu intaan aadaan kuu dhiibay ma ilaaba bay tidhi intaan ilaahay u dhiibaba waa qayba un bay leedo markaa dhammeeyo ma idhahdaa ilaahu aadaan kuu dhiibay nabiguna wuxuu ina leeyahay calayhi salaatu wasalaam acjasu nnaasi man cajasa can idducaa dadka waxa u caajisaysan ka ilaahay baryadiisa ka caajisa dadkaasaa ugu caajisaysan buu nebigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam idan waxaynu u baahanay wax kastoo aynu qabanayno inaynu ilaahay subxaana wa tacaala u tala saaranno waxaynu u baahanay maalan cilmiga barashadiisu waa tarkiiska bay yidhahdaan caqligu marka wax qaybayo waxay yidhahdaan 10 daqiiqadood oo tarkiisa ayaa 10 saacadood oo aad kolba derbi daawanayso ka fiican ولذلك bay yidhahdaan ardayga xaafidka wax qaybaya waa inuu qaybaa meeluu caqliga tarkiisin karo oo aanu wax mashquuliya arki karin oo saa daraaddeed culimadu waxay yidhahdaan inta ugu badan le qaybis waxa ugu fiican suxuurta iyo wixii ka dambeeyay ilaa salaada subax ilaa intaasi waayo waqtigaa bay yidhahdeen jawiguna waa haadi dawdaa iyo qayliya buuqtoona maqlimaysid calooshuna bay yidhahdeen ma buuxdo calooshu hadday buuxdayana waa inkaar waayadaa dhiiggaba inta badan cabto ood mashquulaysaa laakiin markan bay leeyihin jidhkuna wuu fudud yahay calooshuna ma buuxdo dhiigga inta ugu badan le maskaxdaa qaadanaysa qofkuna wuu tarkiisin karaa bay yidhahdaan idan waa waqti alxifdi bay ku tilmaami jireen culammadii hore inuu yahay waqtiga ugu fiican ee uu qofku wax xifdiyi karo waxaad kaloo u baahan tahay imaam xasan albasri baa wuxuu lahaa war nafta buu yidhi haddaanad xaqa ku mashquulin baatilkay kugu mashquulinaysaa nolosha ma jiro waqti firaaqa laye iminka bishan horta waan shaqaynayaa bishaad shaqaynaysana qayb waayo noloshu waqti firaaqa aba ma leh mar kasta hawl nooca unbaa ku haysataa saa daraaddeed buu wuxuu leeyahay imaam xasan albasri war naftan haddaanad iyada xaqa ku mashquulin buu leeyahay iyadaa baatilka kugu mashquulinaysaa adigu shuqulba waayi maysid adigu shuqul waayi maysid mar haddaanad shuqul waayin adigu shuqulka xadee shuqulka aad rabto inaad qabato ha noqdo mid adiga kaa soo fulo ahmiyad kuu kale leh oo priorities kuu kale fog waxaad kaloo u baahantahay albii'a almuthabita inaad ka tagto dadkan dadka cagsi geliye waxba lama qaban karo waxba nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu jeclaa tafaa'ulku waa maxay waa inuu qofku khayrka had iyo goor sheego wanaagga in waxa la qaban karo culamaa'i nafsi waxay yidhaahdaan الرسائل الإيجابية والرسائل السلبية وحلا يدهدان شيغان waxay yidhaahdaan risaalaadka iijaabiga positive-ka wanaagsan iyo wargeysyada ama dhambaalada negative-ka ama xun maalan bay yidhaahdaan ilmaha yare quraanka aad u dhigaysaa haddaad tidhahda qabi iyo waxba garan maysid ximaar weeyaan kani eraygaasi wuxuu ka dhigi karaa bay leeyihin ximaar culamaa'i nafs waayo waxay leeyihin haddii lagu celceliyo caqlulbaatinku galaa bay yidhahdeen caqlulbaatinka waxa galaana hore uma soo noqdaan saa daraaddeed wuxuu ku qancayaa bay leeyihin inuu fashiliyey oo aanu waxba qaban karin
waxa ka roon bay yidhaahdeen tafaa'ulka iyo kalimaatu tashjiica waad fiicanta inaad tidhaahdo inaad adigu yara samayso tidhaahdo maantaana tarkiisine si wanaagsan baad u qaybay waa ku aqaana hebel waad qaybi kartaa 5 minute halkaa u bax intaasaa ugu filan bay leeyihiin inuu qaybo walidaalika xataa waxay yidhaahdaan markay culamaa kuwan psychologiga markay ka warramayaan wax haddaad rabto bay waxa laga yaabaa nafteenna inaan wali baran wax haddaad rabto bay yidhahdeen nafta inaad ka dhaadhicsa intaad cidla fadhiisata bay yidhaahdaan u sheeg adigu naftaada kor ugu dhawaaq bay yidhaahdaan ma arrintaa ka warran waxay leeyihin intaad cidla fadhiisato waxaad tidhaha qur-aanka waan qaybi karaa 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 waxay leeyihin waa risaala loo diraya bay leeyihin caqliga aamusnaa xataa bay yidhaahdaan sida negatifeka ah u isticmaalin bay yidhahdaan waayo tadambuu qabtaa bay yidhaahdeen maalan negative ku isticmaalin yacni ma awoodi karo inaan ma ihi faashil ha odhanin bay yidhahdaan faashil ku qabanayaa bay yidhahdaan waxaad tidhahdaa naajix baanay waan guulaysanaya daadhe bay yidhahdaan waayo waxay dhahaan caqliga bini aadamku haddii lagu yidhahdo maalan iminka bay yidhaahdeen faras madow ha ka fakerin maskaxdaadu marka ugu horraysa waa faraska madow bay qabanaysaa bay yidhahdeen diimkan ku yidhaha faras madow ha ka fakerin faraska madow bay maskaxdaadu markiiba u tallaabaysaa laadii hore bay yidhaahdaan waa negligible ma ku xisaabtanto sida daraaddeed waxay culammadu yidhaahdaan التفاؤل والكلمات الطيبة قفكو إنه استعماله وياه نفتا إنا دوشة نولش الصعوبات بايلاضي ودالي كرتا مشكلة باكاهر ما كرتا وحاسي لكن وحلوه بهينة كدول بودو وحلوه بهينة طاقات كي كوكو كيت سنائنا ديبو أديكستو وحلوه بهينة سديبين نولش يسديب كاو قليتا وحلوه بهينة مركاينة تنهضا وان قابن كرا وان قابن كرا وان قابن كرا واقيب كرا واقيب كرا واقيب كرا سيدا أوجد nafta inaad adgu mashquulisaa baa loo baahayay waxay yidhaahdaan bii'ada markaa qofka cajsi gelinaysa inaad ka guurtaaba ku fiicanta la saaxiib had iyo goor mid kaa qaybis badan iyo kaa sii horbooda oo kusii hor socda ninku wada walidaalika baa waxay yidhahdaan jawharadu bay yidhahdaan haddii jawhara meel nijaasa ay ku dhacdo shay thamiini oo aad istiraahdo daahiri biyo badan haddii lagu shubo aakhirka way daahiraysaa laakiin waxa ka fudud bay yidhahdaan intaad ka qaado aad maydho in yaroo biyo nuskoo baa nadiifinaya maydhaya laakiin halkii uska guyaalay haddaad biyo ugu darto waa taa macnaheedu waxa la mida bay yidhaahdaan dadka musbitiintii hadday kugu xeermaan un dad le waxba lama qaban karun haddaad la noolaato adna waad caajisaysaa marka dambe waxaad isku daydaa bay leeyihiin dadka duulaya inaad la duusho dadka wax qabanaya inaad la qaban karto walidaalika ikhwatii fi lcaqiida waxaynu u baahanay waxa weeyaan oo lagama maarmaan oo qofka muslimka ay tahay inuu adeegsado kow inaad niyada hagaajisato oo ikhlaasi niya ilaahay subxaanahu wa tacaala wixii dartii loo qabtaa sugmay inaad niyada hagaajisataan laba waxaad u baahantahay inaad naftaada dareentid oo fahamtid oo garatid haddaynu leenahay 60 sannadood haddii second kasta 10 shay lagu sheegayo hal loo qaybiyay milyuun awooddii maskaxdaada ka mid ah baa la isticmaalay bay tilmaamayaan adna waxaad odhanaysaa waan gaboobay ama waan weynaaday ama waxba ma qaybi karo waa dafiraad aad ilaahay nimcadiisii dafirayso waa gacantaydii xidhantay una aanad ku dayin inaad kala bixiso يعني واحد وباهنت هنا تكلم بحسه عقلك هنا تسوع عليسه واحد وباهنت طاقة قال لك وسيه سبحانه وتعالى هنا تكمل هاد عليسه هنا تكمل هذا نقديد ودب أدو أديك ستد واحد وباهنت مركا هنا دي اللوده عبشة إيو ما أوده إيو عوامش نفط الدبر دكتي وحا صدرنا هنا دي اللوده أد مندفع نقطه أظهر وسعته وحين لأنه واحد وباهن هاي العوامل المؤثرة الخارجية وحن نفتا دي رجالية مثلا أديله وراء هلكا 4 ساعات استاج أدكت 4 ساعات سامي تاجنا كرس عقاب إنه ورث حبيبي ولا بوق دم غنيس لكن أديله إذا هذا هرجيسة ما أنت نكيا 4 ساعات تاجر هذا $8 بولي عدي على هيدنا دارك شرت ما مالينس لا ما أركين أيوة $10 بعوضة $10 هدي لا شيء 4 ساعات oo qudus la sare taagnaado dabar iyo meel ku xanuunta baad skiijinaysa dan noloshu waa caynka
waa laga yaabaa markaynu leenahay waxbaro caraaqil baa jiraysa ka hor imanayso laakiin waa inay jiraan mu'atharaad khaarijiyo iyana ku dhiiri gelinaya dee mu'athirka weyn baad garanaysaa jannatin carduha asamaawaatu walard uciddat lilmuttaqiin hadday kuu muuqato janno cirkan iyo dhulkan baleeg iyo waxaan oo dhan ka weyn inaad helayso 4 iyo 10 iyo 20 batee taagnow 10 iyo 5 iyo 10 ba u ictikaaf inaad quraan xifdido علماء كل شيء قال لي وحن باري من حفظ القرآن ما كله فتيدا كتب تقيب سين واد غريب سنيسة حفظ القرآن كذا وكذا دبتنا وحلنا قف ولي بوحبو قيب كره داك استشوك عد عن الله اللي يمان ما هذا اللي يروي اللي يرد هذا يسوي بلا بيعرف فرصة دي بهستان ودا هذا الرون إسلام وقت كبا يدن دافع ورهبيني دي كم تجين نكاسي كونتريا فرتشيركها أفريو كونتون سنتشري بين لنا بشيخ الأزهر نقضي إذن عقل جينا اللي وكسينا واضح يسطا وحات كلا وباهنتي وحويان وقتها إن تكفى يديست وحين هذا هجمة الوقت إن هذا وقتها جوير القواهات وأنا كاد ضيع من هذه لالسه وحد وباهنتي مكان مناسب إن تهشيد وحكو قيبتها ما وحكو حفظي waxaad u baahan tahay bay yiraahdaan muntazim inaad noqoto qof nidaam raacaya inaad noqoto waxaad u baahan tahay bay yiraahdaan takraarkaasi tirada badan leh inaad samayso waxa runtii aan sheegi karnaa ma se akhriyi karnaa wax badan waxaan ka warramayaana wax khayaal ma xaj kamida xajajka ayaan tagay ahad al-ulama baan khaymadiisa ku soo booqanay niman dhalinyaro baa la joogo fataawida ka fatwoonayay markaas wuxuu yiri nimanka kan waxaan ku tijaabinay inay sunanka qaybaan dabeetana markay quraankii qaybeen sunankiina way qaybeen iminkana musnad imaam ahmed 40 kun oo xadiis imaam ahmed ay haddana wadaan buu yiri way qaybayaan wana ma dhalinyaro iska caadiya wana la caadiya ku nool deeinaga waa la inaguba eegin waxa la yiri waxba lama baran karo waxa la yiri waxba lama qaybi karo waxa la yiri waxba lama noqon karo sadaraadeed baynu waxba noqon weynay لكن ما أنت واحد اللي يور وحبان نقول كرتان بخاري وين كجرة ولا سوق قبل لا يهون بخاري كلمة بصو صارتي يسقى فردية جلسة إسحاق بن الراهوي أحد أئمة الحديث شيوخ دي سكمدة يسقى جلسة دي سفردية أيام بشيخ مالنتي وحيودي ما الله لو مد إذن كإذن كمدي تلو مو أرورية حديث النبي كاس صحدي كلمة ده بخاري قب كتري isagoo jalsada iska fadhiya ayuun buu sheekhiisii wuxuu yidhi talow maal la helo nin idinka mid ah oo ururiya axaadiista saxiixa هذه الكلمة baa anfacday imaam al-Bukhari dabeetana wuxuu u xidhxidhay inuu kitaabka Bukhari qoro laakiin Bukhari inuu qoro juhdu ku bixiyo habeenkii 20 jeer buu ka cijiray mararka qaarkood habeenkii 20 jeer ay mararka qaarkood faynuska shidan jiray إمام الذهبي إمام البرزالي محدثها إمام المزني أي الرجل محدثين تودى شوقينا أيام علينا أركي ذهبية وحقرية ذهبيات بو فرفعنا ذهبي وحكوه الري علم القراءات يا قرآن يا حفظ يا حاجة سكوه الري دبتنا إمام البرزالي ومبارك يسقى وحقرية مركزوري خط كاغو في عنا وخط محدثين كلمة داون باب قبت ربا ليري إمام الذهبي مركزور دقاقي علم الحديث والذهبي هو ابن حجر وعبي بيا إلى وحفظه سيسي نين بايري ورفرفي عانده فرتي أهل الحديث قال لي ضيون بالويري فرتي أهل الحديث كو يا شيء دبتنا يعني أرى يبال الله شيء إمام الذهبي دبتنا كان دقيقين ونقضي إمام الذهبي درس كان ما أنت عن وضعي مركز وحان ربينا ندين شيء علماء ديني تكتي dad khawaariqul caada oo gaar oo qiina gaar oo meel gaar laga sameeyay inaan ahayn saynis yahanadii aqoon yahanada maanta jooga dunida la leeyay cirkay wax u diranaya halkan ka baxeena inaanay dad gaar ahayn laakiin waa dad ku qancay in ilaahay awood uu siiyay ka faa'iideyn karaan waa dad ku qancay inay samayn karaan wax oo awoodi karaan nalkana arkaysan ninkii bilaabay Watson 9 jeer markuu ka bixiyay markunaadkii buu u baxay tasmacuun laambad buu rabay inuu shido cilmigii bariga bilowga ahaa ee waday
ووضع وبحي ويداون وكسر نقضاء ووضع 1000 مرة بكش ذي بين هذا مركونات كيبو إفيي توينا قولي في سنة إن الله بدأ دريده نبى جم إوايون إلى النقطتين أنا كجمين بهاشنا بحد موياني دبتنا مركو جم إوايون بآخر كي الله بدي بحد دريده ده بنوا تاود الله بدأ النقطتين كلمة دان رمضان توحيتها برنامج كي هراء أي فورماتينغ اللي كذا سميناه تعرفون لغة الكمبيوتر وتقارن بانو ملاينيا شيء مركز دبلوم صحيو ولا فورمات قريبة إلى هذا waxaan rabaa in maskaxdiina dib u format gareysaan ka format gareysaan cajzigan iyo wahniga kan iyo waxba lama qaban karo taa meel inaga dhiga waayo dadkii horena waan idinka sheegay kuwa maanta joogana tusaalahan ku badiyay inaan idinka siiyo qaar 20 casho ku qaybay iyo qaar 30 ku qaybay iyo qaar Bukhari iyo Saxiixayn ka qaybay war haddadan مثلا labadan inaan sheegay nin kamid ah Dr. Yahya Al-Ghawthi maya Dr. Yahya Al-Yahya حفاظ الوحيين هو ويب سايت كلا يراني كله دكتور يحيى اليحيى أحد العلماء مدينة جنب الرجينين يحيى اليحيى وحلي برنامج سنن كلا قيبسية دتك قرآنك ما تقارن أنت لقو قيبسية قرآنك الدورة دي سؤال لحدا مع الموضوع لقو قيبة بس لبدا بلاد أرض السكول هذا كفى صحتها هاي ayaa la iskareeyaa ardabu la iskareeyaa xarameynku keena labada bilood ayaa quraanka lagu qaybaa waa dawra li hifd alquran lixdan casha meel la fadhiyaa shaqo kale la qabanin laga rabixin cunada un la cunaa loo i'tikaafsay in quraankaas un la akhriyo la kala dhageysto lixdan ka casha ku qayba sunan ku dadka qaybsiya nidaam gaaru iska leeyahay oo raaco awalan bukhari iyo saxiixu muslimku inta isku waafaqeen buu soo ururiyay kitaab gaar u qoray kitaabka saardada loo dhiiba mattafaqa shaykhan baa la qaybsiyaa kadib ayaa ardayga waxa la qaybsiyaa man farada bihi al-imam al-bukhari oo gaara wixii imam al-bukhari uu dheer yahay waxa la isku ittifaaqsay kadib ayuu wuxuu qaybsiyaa wixii imam muslim uu munfarid leeyahay ee aan ku jirin bukhari inta markuu qaybsiyo الفاظ أي مختلف في بالغيبسية كذب وحر راعية سنن كلا سقطا أبي داود وحي أن بخاري مسلم كتشرين يوجار كلا يوم بالغض البناية انتهى على غيبة ترمدي وحي أن صدح دي كتابه هو كتشرين يوجار كلا يوم بالغض البناية رقم بصوص على سنن كغيبسا إذا ما حد الله شباب كحفاظ ده قرآن كهية يجا وحن لا يبلو باتين ده قرآن كهيسان كصعدة حديث كقيبة علوم الآلة قيبة كتاب دنبينكو آخرين يلا إذا نرك كتاب كآخر أنت هتكقيبة بس أئمة المسلمين لما أنتوا دعين كاسيها كتبتوا دلابتوا دي كسيتين إمام الشافعي قبل يسمعوكوا شيء واكيلو هذا علمه واحد قرطاس قرن ما هبوده واحد قلبي قاعد كسيتو غزالي بقى اللي بري كتب صار طيب سقوا وتاتوجي هشة markaasay dhacdo kaasuu yiri war kitaabadu iga taga cimrigayga wixii aan qorayay halkay ku jiraan war saxaabay ku yiraahdeen kitaab leeyne maalintaas uu tashado yiri cidlaad qodaysi wixii dama uu qayba deetug dama muxuu ka qaaday kitaabkiisii laabtiisa ku qayba waxaan uga jeedaa marka kelmadda tani waxay fura u ahayd inaynu soo saarno dahabi iyo bukhaari iyo muslim iyo shaafici iyo abu xaniifa iyo maalik way idinka buuxaan hadday culuum maadiya tahayna einstein iyo kayrkiiba way idinku jiraan laakiin ha ku qancina waxba garan maysid iyo waxba baran kari maysid iyo meel cidlaha baad joogtaa iyo aduu afrikaan baa tahay iyo kan baa tahay iyo cajami baa tahay waxaas waa sheeko daaqada alla ku siiyey ilaahay uga mahad celi subxaanahu wa tacaala iskuna day inaad adeegsato ragga halkan ku ictikaafsanna waxaan leeyahay daydinku 60 cashaa tijaabinaysaan ba ina quraanka qabataan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh